shirkan oo ka qabsoomay xarunta qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir ayaa looga hadlayay dardargelinta amniga caasimadda halka lagu soo bandhigay warbixino ku saabsan shaqaaqadii ka dhacday garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cismaan ee magaalada Muqdisho. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa shir gudoomiyay kulankan oo ay qayb ka hayeen gudoomiyaha gobolka Banaadir, wasiirka amniga, wasiirka arrimaha gudaha iyo saraakiil ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed. Shirka ayaa lagu soo bandhigay warbixin ku saabsan qorshaha sugidda amniga caasimadda inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, maadaama argagixisadu ay doonayaan inay dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed ee cibaadeysanaya. Hay-adihii loo xil saaray baaritaankii dhacdadii ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa shirka ku soo bandhigay warbixin ku saabsan sidii ay wax u dhaceen iyo tallaabooyinka ugu habboon ee laga qaadi karo dadkii ku lugta lahaa shaqaaqadaasi. dhacdadii maanta ka dhacday garoonka caalamiga ee Aadan Cabdulle Cismaan, taas oo isjiid aan habboonayn oo hay-adaha meesha ka shaqeeya uu dhex maray, muuqaal xunna ka bixisay garoonka iyo howlihiisa. Waxaan ku faraxsannahay in aan garoonka wax dhibaato ah weyn ka soo gaarin, laakiin muuqaal xumo iyo aanan raalli ka ahayn ka dhacda meesha. Asaga iyo madaxweynuhuba aad bay runtii arrintaas uga xumaadeen. Waxaan anugu ku jiray marka wasiiro iyo mas-uuliyiin meesha loo diray oo taliyaha booliska iyo kulli ay ka mid yihiin. Wuxuu naga dhageystay warbixintaas ayaan u gudbinay. Waxaan u aragnay in wixii meesha ka dhacay tallaabo laga qaado ayaan u soo gudbinay. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay dhacdadii ka dhacday garoonka Aadan Cabdulle, waxaana wasiirka amniga hay'adaha kale ee ku shaqada leh faray in tallaabo degdeg ah ay ka qaadaan kuwii ka dambeeyay shaqaaqadii muuqaalkan wanaagsan ka bixiyay dalkeena. Arrintii maanta ka dhacday garoonka Aadan Cabdulle runtii aad iyo aad ayaan uga xumaaday. waa arrin fool xun, waa muraayadii dalka Soomaaliyeed. waxa maanta dhacay wax loo dul qaadan karo ma ahan. waxaan faray wasiirka amniga, wasiir Xundubey, inuu ka qaado tallaabada sharciga ah ee waafaqsan sida ugu dhaqsiyaha badan 24 saac ee soo socdo. waxaan kaloo faray in ay jawaab nagu soo siiyaan wasiirka amniga, taliyaha booliska, taliyaha immigrationka, taliyaha NISA, wixii meesha ka dhacay. cid kastoo falkaas wax ku geysatayna dhammaan sharciga la marsiiyo. waana fariin aan toos ugu diray wasiirka amniga oo aan ka sugayo jawaabteeda. shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa ka qayb qaata wanaagga dalkiina. ma ahan in social media la wareejiyo wax dalkiina dhaawacayo. idinka u arko wax aad ku dhibaysaan ama xukuumad ama dad gooni ah ha u arkina. waxaan waa shacabkiina, waa dalkiina, waa dadkiina. lahaa ogaada inaad dalkan leedihiin. Soomaaliya ha ka dhigina nin qaawan oo geeljira ah oo Soomaalida dhahayo walaalayaalow aan is asturno. haddaad isqaawiso aad tiraahdo walaalayaalow aan is asturno, ma asturnid. is astura. shacabka Soomaaliyeed joojiya waxa aad qaybinaysaan. waa sax, wixii waa dhaceen. ciddii falkaas geysatayna waa la yaqaanaa, waana laga daba tegayaa sida ugu dhaqsiyaha badan. shirka ayaa gabagabadii isku raacay isla markaana ansixiyay qorshihii la soo bandhigay ee amniga caasimadda. qorshaha daahfurka amniga gobolka Banaadir iyo sida ay howluhu u socdaan. waxaan warbixin ka siinay howlaha kala duwan ee ciidanka booliiska uu ka qabto magaalada Muqdisho, gaar ahaan bishan Ramadaan ee lagu jiro, oo aanu sii adkeynay amniga guud ee magaalada Muqdisho. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa ugu horeyn bogaadiyay ciidamada qalabka sida ay u sugeen amniga guud ee dalka, gaar ahaan ciidamada booliska gobolka Banaadir oo xil weyn iska saaray sugitaanka amniga caasimadda. xagga amniga mid heer sare ah oo wanaagsan loona diyaar garoobay sidii amniga sare loogu qaadi lahaa hadday ahaan lahayd cadowga ummadda Soomaaliyeed ee argagixisada ah iyo cadowga kale ee dibadda laga soo adeegsaday ciduu rabaha ahaadee ee nabadiidka ah. sidaa darteed waxaan shacabka u sheegayaa inay la shaqeeyaan ciidamada booliiska Soomaaliyeed, gaar ahaan ciidamada booliiska
gobolka banaadir iyo ciidamada nabad sugidda ee gobolka banaadir dhammaanteen muhiim ayay inoo tahay inaan ilaashanno amnigeenna. haddaanan amnigeena ilaashan cid kaloo noo ilaalinaysa ma jirto. shacabka ayaan arrintaa usoo jeedinayaa. shirkan looga hadlaya amniga caasimadda ayaa qayb ka ah qorshayaasha lagu dardargelinayo amniga caasimadda iyo guud ahaan dalka. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.